dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waan ku dheeryahay sidii kubad aanan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo naftaydiyo qalbiga waan ku dheeryahay sidii kubad aan dhalay oo kalaan dhabu jelaystay barwaqada dhextaal iyo nimcada kuwaan ku dhulay dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay yaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay yaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli tiray cimila dheefteed dhayihi jalleeca markudha kama dhirgaayaane duniga cuntada laga helaan shidaaloo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dowrta dibadeede duniga cuntada laga helaan shayna loo dhigine dalxan subagaadhayo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta dhadhamiyey kuma doorsan karo dowrta dibadeede dhexdiisaan ku noolahnaya jirgulnayliwe dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodii sharafteena wixii dhuminayaa handhaafaleeyaqay bisa qaranka dheliga ka jira dhibadow taaga dhexdiisaan ku noolahnaya jirgulnayliwe dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodii sharafteena wixii dhuminayaa handhaafaleeyaqay bisa qaranka dheliga ka jira dhibadow taaga dhaqankiyo hiddaha waan jeclahay uu abkayn dhigaye waxa laga dhexlay diintayada maaha dhalanteede ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu mahad celinaynaa marka xigta mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan wakhtigooda inoo soo huray inay munaasibadan daafurka ay nagala soo qayb galaan ibafurka munaasibadan waxaan ka xuseynaa mas-uuliyiinta halkan inala fadhida wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta teknolojiyadda dalxiiska iyo idaha iyo dhaqanka ee puntland maxamuud caydi dirir gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland axmed yuusuf tahraan xildhibaan cabdulaahi siciid axmed oo baarlamaanka puntland ka tirsan
xildhibaan cabdisaaq xasan ciise oo isna baarlamaanka puntland ka tirsan xildhibaan maxamuud axmed warsame shiike oo isna baarlamaanka jubbaland ka tirsan agaasima waaxeedka waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta cabdiqani yuusuf aadan gudoomiyaha xaafadda bedey maxamed siciid waaberi farange saraakiil kala duwan oo ka socota hay-adda wolfeshin maanta oo taariikhdu tahay 26 agost 2022 waxaa magaalada ayl waxaa laga daafurayaa hoteelka lagu magacaabo ayl beach hotel ugu horeyntii waxaynu ku iba furanaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaan soo dhaweynayaa rabaa inaad sacab igula soo dhaweysaan sheekh jaamac siciid sidoo aayadaha qur-aanka inoogu iba furan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم waxaan raacsiinayaa in yar ragga dhalinyarada ah ee maaragtay kharashka badan u huray meesha tano aad iyo aad ugu habboonayd oo ah meel ummaddu isugu timaado oo laga ganacsado oo maxaan ku idhahdayey soomaaliya ajnabiba ay yimaadaan oo aad iyo aad aynu hoteelkan ugu baahnayn waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu baahi badan oo inoo maaragtay buuxin doono jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay midka wax laga dheefo allah ka dhigo allahna inoo barakeeyo innagoo dhan waxaan leenahay maasha allah dha insha allah sidaan xusnayba hoteelka ayl beach oo loogu wanqalay magacaasi hoteelku muxuu ka kooban yahay muxuuse yahay maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray waxaa inoo faahfaahin doonaa mid ka mid a mulkiilayaasha hoteelka axmed nuur aadan ayaan soo dhaweynayaa isagoo inoogu faahfaahiyo hoteelkan adeegyada uu bixinayo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska xildhibaanada labada maamul goboleedka puntland xildhibaan cabdisaaq iyo xildhibaan cabdulaahi iyo xildhibaan maxamuud oo ka yimi jubbaland sidoo kale agaasimayaasha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kale ee meesha isugu yimi waa salaamaya salaan kadib waan soo dhaweynayaa dhammaan madaxda mas-uuliyiinta iyo marti sharafka kale halkan isugu yimi oo runtii aqbalay casumaadaan u fidinay noo yimi maanta nala joogay halkaan aan ugu soo bandhigayno waxaa adeeg aan hayno ee hoteelka halkaan laga fulay magaciisa la yiraahdo ayl beach hotel ayl beach hotel waxaa laga furay sida ogtihiin degmada ayl oo ah degmad taariikhi ah oo wada garanaysaan oo gobolka nugaal degmadii caasimadda magaalo madaxda u ahaan jirtay ah degmadan waxay kaloo caan ku ahayd degmo dalxiis waxay kaloo caan ku ahayd degmadii halgankii daraawiishta degmooyinka ugu waaweynaa ee laga soo galay oo aan isleenahay sayid maxamed cabdulla xasan aasaartii uu ka tegey guryihii iyo dhammaan waxa weeye meelihii uu degi jiray meelihii uu joogi jiray istiraatiijiyaduhu ku isticmaali jiray kulli waa laga helayaa ilaa hadda waxaan uga mahad celinaynaa degmooyinka maayaradii soo maray degmada inaa kulli aan sidooda laga taaban oo dadku arki karaan taariikhdii hore iyo waxa deegaankaanu ahaan jiray degmada noocaasa waxay leedahay marka dhanka laga fiiriyo dalxiiska baddii waxay leedahay buurihii oo aad u qurux badan oo aan laga helin Soomaaliya iyo adduunka meelo badan oo si u samaysan tahay waxay leedahay beerihii waxay leedahay xoolihii waxay leedahay xataa biyaha markaa fiirisid biyo spring waterkii oo kuwii kululaa iyo kuwii qabowaa oo buuraha ka imaanay oo abaar iyo barwaaqaba buuraha ka yimaada waa waxyaabaha cajiibka oo maaragtay khaaska u tahay laakiin anagu waxaan isku daynay hotel waa jireen laakiin si hotel casri loo helo balna midka wax ka qabano ujeedka ugu weyn ee hotelkan loo dhisay loo maalgeliyay business ma ahayn wuxuu ahaa magaalada qadiimka ah abaalka nagu leh inaan dib u soo fiirino aan dib u soo milicsano hotelka halkan ku yaala wuxuu ka kooban yahay adeegyadu bixinaya waxaa ka mid ah chiefkii oo ah 22 qol oo chief ah oo ilaa 4 level kala la qiimaha waxaan ugu talagalnay ugumana talagalin dadka diasporada iyo dadka dhaqaalaha haysta kaliya xataa dhalinyaradu way imaanayaan package baan u sameyn doonaa lacag kooban oo yar oo aan magaalooyinka dhan ka sameynayno inay bal yimaadaan oo dhulka quruxdiisa arkaan
oo ay hadhow xataa haddii dibadda aadaan ay arkaan inaan weli dhulkooda qurux badan yahay marka kuma samayn doono dadka dhaqaalaha haysto keliya inay ka faa'iidaystaan 4 qaybood buu kala kooban yahay ilaa VIP ilaa dadka shacabka kulli qayb weeye wuxuu kaloo ka kooban yahay 2 hool oo waaweyn oo mid kan yahay iyo hool kale oo kala ah oo ka sii xoogaa oo aan ugu talagalnay deegaanka howlaha ka socda in lagu fuliyo shaqooyinka dadku meel ay isugu yimaadaan odayaasha ganacsatada kulli meel ay haddii u baahdaan inay danahooda ka tashtaan inay helaan wuxuu kaloo ka koobnaan doonaa u yeelan doonaa dukaankaasoo laga heli doono qalabka badda si dadka dabaalanaya u helaan alaabta safety-ga ah wixii u baahnayaan agabta ka dhan ay ka helayaan dukaankaasna asna waa la heli doonaa insha Allah waxaa dheeraad ah oo aan hadda weli dhammaystirin laakiin asagna dhammaystiri doonaa adeega dalxiiska wuxuu ka koobnaan doonaa doonyihii dadkii dalxiisinayay kulli waxaan rabnaa il qof markuu yimaado inuu sida dunida kale oo kale uu wada helo package dhammaystiran oo dalxiis dhammaantiin waa mahadsantihiin ma badinaya hadalka adeegyada aan hayno intaasaan ku soo koobayaa insha Allah wixii kale oo tala ah oo shacabkana waa ku dari doonaa waa noo furan tahay taladu waa mahadsantihiin bixinayo markan waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha xaafadan oo runtii nasiib u yeeshay in hotelkan xaafadan si gaar ah looga furo gudoomiyaha xaafadda Baday Maxamed Saciid waa bari Franke ayaan soo dhaweynayaa sacabna lagu soo dhaweeyo marka waxaan qabaa maanta inay tahay maalintaydii marka aad baan ugu faraxsanahay anoo magaca degmada ku hadlaya in aanu hotelkan quruxda badan ka soo qayb galno furitaankiisii runtii degmadu waxay ka qaadatay qayb lixaad leh hotelkan waayo waxay samaysay dhulkii hotelkan laga dhisay degmada ayaa si volunteer ah ganacsatada ugu soo dhaweysay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka runtii waxaan oran karaa waa niman karti leh oo dalkan aad ka muuqato muwaadinimo waayo halkan waxay ahayd xaafad la oran jiray xilligii wadaagtii xaafad laba oo dad badan oo 74 ay deganaayeen ummadii waa laga kiciyay qaybina waa isaga tagtay maamulka ayaa gacan bira ku dhigay dadka goosanaya iyagoo markaa u socda inay uga faa'iideeyaan bulshada cidda ganacsi ee la imaanaysa marka halkaas maamulku dhigay waana uga faa'iideeyay waana uga mahadcelinaynaa waqtiga ay geliyeen iyo maamulku waxa weeyaan waqtiga weyn ay ku bixiyeen waa tan maamulka tan kale waxaan leeyahay ilaahay ganacsatadii hotelkan maal gelisay oo waqtiga gelisay cidii ka shaqeysaba ilaahay wuxuu u barakeeyo hotelkan Allah ka dhigo mid barakooba waxaan kaloo ku darayaa dadku waxa laga yaabaa dadka daawanaya inay isweydiiyaan hotelkan ayl baa laga furay ayl laga furay xagee ku yaala hotel badan baa ayl ku yaala hotelkan wuxuu ku yaalaa xaafadda Baday wuxuu ku yaalaa xeebtii qofku waa muuqataa u baahan ma inuu gaadiid raaco laguuso ku soconaya xeebta wax yar bay ku jidhaa magaalada wuxuu ka xigaa meel geesa oo xeebta ugu fiican meel dalxiis ah buu ku yaalaa waxyaalaha hotelkan hotelada kale ka doonayaan waxaa ka mid ah waxaa laga samayn doonaa inkastoo ganacsatadu ka hadlay cunada badda oo ah cunada ugu qaalisan geeli waa la cunaa ariga waa loodi waa la cunaa laakiinse cunada badda ugu qaalisan oo laga helo caafimaad aad u tiro badan laga yaabo dhiigga cas inay kordhiyaan oo runtii rag badan ay u baahan yihiin laga yaabo in maartay baahidaas u jidho marka waxaan kaga duwanaan doonaa hoteelada kale waa xagga cunada badda wey inta kale wax ka simannahay hoteeladu waa hilib geel iyo arig waaya laakiin waxaan koob kaga qaadaynaa inaanu argoostadii kalluunkii loodkii bah la yiraahdo sheel bah la yiraahdo u roon waxa weeyaan adeela ilmaayo u roon ruuga ragga kici waayay abraha kici waayay dhareerka kordhiya runtii waxaas dhan waa laga helayaa hada waxa maqlaysaa qof Itoobiya waxa ruuga laga soo duray midaan lagu durin baa helaysaa inta lagu habeeyo oo lagu qudaar lagu daro kacaysid marka waxaan leeyahay cid kasta oo degmada ay maal gashanaysaa maamulka degmadu diyaar buu yahay gacan furan ku soo dhaweynayaa oo Soomaaliyeed khaasatan reer Puntland cid kasta oo maal gashanaysa oo degmada horumarinaysa waxaan naga go'aandaan reer ay nahay oo ka mideysanahay inaan gacmo mideysan ku soo dhaweyno hooyo aabawnahay cid kasta oo maal gashanaysa hotelkaanuna waxaan leenahay ku soo dhawaada ganacsatada ku soo dhawaada qurba joogta ku soo dhawaada dadka barafku maartay dhibay waa hotel ma garanaysaa aan ka sheekeeyay
aad iyo aad baa u mahadsantihin. assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. hoteelkan halkan maanta aynu joogno anugu da' baan joogaa 76 sano ah 76 iyo 6 sano weli ma hayo meel habboon oo la seexdo ilaa talyaanigii ilaa waqtigan maanta aynu joogno ayl meel habboon oo meeshaan oo kale ah ama ku dhow oo laga dhisay oo loo hurda tago ama loo caways tago ama loo hunguri tago ma aan arag. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa hoteelkii koowaad. hoteelkaanu wuxuuna ka dhisan yahay qaybta bedey oo badda u dhow. aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa nimankii noo dhisay dhallinyaradii raggii noo dhisay aad baanu ugu mahadinaynaa. annaguna waanu soo dhowaynaynaa haddaanu nahay degmada ayl siiba tuulada bedey. aad iyo aad baanu u soo dhowaynaynaa. hoteelkaanu waa hoteel munaafac ah oo dadka qurba joogta iyo dadka deegaanada kale nooga yimaada anfacaya annagana na anfacaya oo bilic noo ah. bilicdii koowaad maanta ayaanu gaaray. insha allahu waxaanu malaynaynaa in lagu dayan doono oo kuwo kalena ay noo imaan doonaani. waxaan hambalyeynayaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada ayl hoteelka baaxadda weyn oo aadka u quruxda badan oo ilaa intii aan jiray aan ku arkin degmada ayl oo halka ay dhalinyarada u dhalatay gobolka nugaal ay noogu dhiirigeliyeen inaan ku dayano oo ay halkaa nooga fureen. waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyo. alxamdulilaahi rabbil caalamiin baa dhahaynaa. awal maanu haysan jirin hooy ay dadka meelaha nooga yimaadaan ay ku dhiiradaanin oo noogu yimaadaanin. marka waa mahadinaynaa annagoo kaambi haysana oo kalluunka haysana inaan la dafiro oo intiina loo yimaado leelo intii la soo qaato halka intii xeebteeda 2 jeer la isku sawir in la ka laabto. awal waxay noo ahaan jirtay qalbijo laakiin dhalinyarada hadda ku dhiiratay inay dhisaanin marka saddexaad iyo mar labaad hambaliya naga mudantihiin. waayo waan dhiirigeliseen degmada kor baa u qaadeen annaga kor baa noo qaadeen dhalinyarada ay shaqo helaysaa horumar bay helaysaa annaga degmada waa noo kala soconaysaa waxa helaynaa kala socod iyo wax kala gadasho iyo degmadii hore u socoto hadda qurux baa ka muuqata. awal sawirada waxaan la ka qaadi jiray bad iyo beero kaliya ah laakiin hadda guryo qurux badan iyo beero qurux badan iyo shacab qurux badan ku soo dhawaada ku soo noqda ayl kalluun bisil oo nooc kasta leh oo fresh hadda ma ku talaagada ku qaysay waa markaa mid fresh ah oo badda laga soo saaro liin sameynaya kaambaan anaga gacanteeda lagu sameeyay. bacda salaam ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala. runtii aad bay noo farxad gelinaysaa inaan ka soo qayb galno hoteelkan furitaankiisa aadka u qiimaha badan leh. waxaan rabaa inaan dhowr eray isdul taago haddii rabbi idmo. hadal hadduu qiimo lahaa waa la yidhi intii iga horreysay baa tidhi laakiin waxaan rabaa hal iyo labo inaan dhaado haddii rabbi idmo ama xoojiyo. marka koowaad waxaan u mahad celinayaa ragga ee khiyaarta ahaa dhallinyarada ahaa oo ganacsatada ahaa oo dhaqaalaha intaa la eg geliyey goobtan ayl gaar ahaan bedey. waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran. ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka khayr badan buu idinka siinayaa insha allahu tacaala. aad baan idinku mahad celinayaa aad baan idin dhiirigelinayaa. waxaadna ogaataan inaad haysataan iskoor ama shay aan la idinka horreyn oo ah hoteelkan quruxda badan in laga dhiso bedey. dadku markay wax dhisanayaan reer ayl baan ahay runtii xaqiiqatan muddo dheer ayaan ayl joogay ilaa 2000. runtii qodobkaani wuxuu ahaa qodob aad u qurux badan oo aad loo mahadiyey reer aylna ay aad ugu diirsadeen gaar ahaan bedey. runtii waxaan leeyahay sii wada warbixinta haddana siiseen quruxda badnayd waxyaalaha kooban oo ka dhiman insha allahu tacaala ku dara. bulshadu reer Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Garowaba waxay noqonaysaa goob lagu nasto goob looga yimaado qurbaha bay noqon doontaa laguna soo talagalo insha Allah. taas marka waxaan leeyahay raggii odayaasha ay barnaamijkan fulinayay aad baa ugu mahadsantihiin. midda labaad waxaan leeyahay reer bedey gaar ahaan guud ahaan reer ayl reer bedeyow waa mahadsantihiin. barnaamijkan haddii laydin keenay hadalladiina quruxda badnaa iyo garab istaaggiina rag iyo dumarba aad muujiseen ficil baad u bedelaysaan haddii rabbi hadalkaas oo ficila baa laydinka rabaa
haddii ay tahay waxqabadka haddii ay tahay garab istaagga runtii waxaan idinku aqaanaa dad aad baari u ah aad u dhega nugul jecel horumarka iyo garab istaagga cidda wax qabsanaysa hawsha aan idinku ogaa halkii ka sii wada insha allahu tacaala waxaan leeyahay maalgashadayaasha raggaas dhallinyarada ahi waxay u baahan yihiin in lagu daydo waxay u baahan yihiin in sidooda ka dhaqaalaha waddanka la gashado oo laga faa'iideysto ummadduna faa'iiday ka helaysaa qofka maalgashadaha ahna faa'iiduu ka helayaa insha allahu aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaanku aad iyo aad buu mahadsan yahay jubbaland baynu aadaynahay waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland maxamuud axmed warsame shiike si isna kelimadiisa furitaanka hoteelka la furay uga dhaw inaan ka mid noqday ama aan ka mid ahay dadkii ka soo qayb galay xalfadan quruxda badan ee lagu furayo hotel AL Beach anigoo safar dheer u soo galay oo runtii inta halkan fadhidaan isleeyahay waa kaga guduban tahay safarkaan u soo galaan oo ka yimid magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa halkaan u yimi inaan ka soo qayb galo oo aan xarig jarkiisa aan ka qayb galo hoteelkan quruxda badan ee halkaan laga dhisay waxaan u mahad celinayaa oo farxad gooni ah maadaama dhalinyaro aan ahay dhalinyaradii runtii sida quruxda badan isku taxalluujisay oo ka shaqeysay inay halkaan ka furaan hoteelkan quruxda badan ee maanta aan isku nimi AL sanadkii ugu horeysay aan imi wuxuu ahaa sanadkii 2021 maalinta halkaan imi dhalinyarada qaar oo xildhibaan Cabdirasaaq iyo ka mid yihiin baa halkaan keenay waxaan ku dayay oo habeenkaasna aan ku seexday silac iyo xaalad ilaahay og yahay hotel ku yaalo meel halkaas ah maalintaas waxaan ku yiri warnimo yahow haddaad tihiin dadka deegaankan u dhashay sidaan wax macquul ah maahan waxaad samaysaan inaad bal sanadka dambe ay imaanayo barnaamijkan waxa laga bedelo runtii waa ku amaanayaa inay isku xilqaameen arintii aan arkay meeshan quruxda badan oo dadka qaar ay haysan badan quruxda badan halkan ku taalo ay ku fikireen inay ka dhisaan hoteelkan quruxda badan maanta aan isku nimi mar labaad iyo mar saddexaad waan ugu mahad celinayaa waana wax runtii ku dayasho mudan waxaan u mahad celinayaa deegaankan gudoomiyaheeda oo hadaaya halkan hadal quruxda badan ka jeedinay oo runtii dhahay waa inaad imaataan waxaan garab idinku siinaynaa inaan idin soo dhaweyno anaga iyo shacabkeygaba waxaan leeyahay gudoomiye hadalkaas meel dheer buu iga dhacay dii waa soo socdaa meeshii aan degi lahaa iyo meeshaan hoteello kale ka dhisalaan waa laga rabaa dad badan oo reer Jubbaland waa keenaya du'aalin waxa ay deeqday quruxda meeshaan dad nasiib leh baa helo waxaa weli si qaas ah aniga ii farxad gelinayo waxaan ka dhashay laba meel oo leh xeeb Kismaayo xeeb leh iyo Eelo xeeb leh waxay ii tahay jaanis qurux badan oo aad aan ugu faraxsanahay runtii waxaan leeyahay idinka reer Badi markii laga soo tago reer Eel dadka gadiga degan waa ka nasiib badan tihiin waxaad baranaysaan dalxiisayaal badan dad badan oo bulsho kale ah oo kala duwan sababta keenaysan waxa weey badan quruxda badan oo mar walba runtii meelo qaarna laga helin baad haysataan waxaan markii idin kula dardaarmayaa inaad hoteelkan quruxda badan ee Leeds uu noqon sanadka dambe marka imaado hotel Gebiis bu muraayadaha laga fiiqayo la dhihin war waxaan hoteelka muxuu ahaa laakiin uu noqdo mid kan iyo mid labaad iyo mid saddexaad inaad hirgelisaan oo alle ka soo koob idinka madaxiina loogu imaado haduu alle idmo farxad bay tahay aniga maanta halkaan aan ka soo qayb galo waxaan awl islaha marka tagtid hoteelkii kii hoo kala weyn habeen ku baadin iska noqo galabta laakiin hadda waxa laga soo kiciyay hurdo waa hilmaama xataa inaan shirkan lahaa maxaa keenayo si fiican u saxiyo hotel qurux badan nasasho leh igu socday mukiifkiisii wixii hadda ka soo baxay marka alxamdulillah ilaahay maadis Allah subhanahu wa ta'ala loo mahadciyaa inta kadib waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyaradii ka soo shaqeysay inay runtii hoteelkan quruxda badan halkan ka furaan xildhibaankii horteeda hadlaya sheegay waxaan leeyahay dadka dalxiisayaasha iyo dadka u dhashay deegaankan ama degmadan Eel iyo deegaankan Badiiba in ay runtii noqdaan dad u soo jeesada inay deegaankan horumariyaan waa meel qurux badan waa meelaha runtii adduunka la raadiyo in la dego
marka aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah wuxuu ka mid noqon doonaa hoteelada casriga oo xilligan ku soo biiray degmada oo runtii baahi weyn loo qabay markan munaasabadeenna waxay noo soo gabagabeynaya oo rabnaa saacab iyo sawaxan iyo moraal inaynu ku soo dhaweeyno wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyadda dalxiiska idaha iyo dhaqanka ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir soo dhawaan kuleena wasiirka kalmada farxad weyn bay tahay maanta inaan furo xariga ka jiro hoteelka Ail Beach Hotel oo halkan xildhibaanadeena iyo ganacsatada dhalinyarada ay ka hirgeliyeen waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay oo xildhibaan Cabdirasaaq xildhibaan Cabdullaahi xildhibaan Jubbaland inooga yimid Maxamuud Axmed Warsame Shiike agaasimaha waaxda dalxiiska wasaaradda muxuu ahaay Cabdiqani Yuusuf Aadan Kayse xoghaynta wasaaradda warfaafinta hoodo waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha xaafadda Beday Maxamed Saciid Waaberi iyo mas'uuliyiinta iyo cuqaasha iyo culimada iyo dhalinyarada hanka weyn ku jiro xaafadan Beday iyo degmada Ayl intaba si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa mulkiilayaasha hoteelka runtii waxaan leeyahay loo duceeyo barakallahu lakum hal yiraahdo oo hal yiraahdo ma sha Allah hal yiraahdo oo maalkiina Allah idin barakeeyo hal yiraahdo ducaha lagu kamilo xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Xuseen iyo Axmed Nuur Aadan mulkiilayaasha hoteelka oo ka dulqaaday xil weyn degmada Ayl ama xaafadda Beday iyo guud ahaan gobolka Nugaal iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba Puntland waayo degmo taariikhi ah oo meel muhiim ah ku taala oo xeebtii ku taala oo dalxiisayaal inay yimaadaan ay ku khasban yihiin oo kalluumaysato aan deegaan ku ahayn inay yimaadaan ay ku khasban yihiin oo aan haddana hotel la seexdo oo la isku aamino lahayn oo cuntadii iyo deegaankii iyo yaani aan lahayn oo yaani meesh maanta la marayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay hawl barakeeyo maalkooda iyo xoogooda iyo maskaxdooda iyo waqtigooda ilaahay hawl barakeeyo waxaan rajaynayaa waa intaas looga sii dhawaado oo la isku daydo oo maxaa ka dhiman la yiraahdo hal kamid aan ku darayaa waxa weeyaan xeebtan inagu aadan ee hoteelkii iyo inaga in yaro bacaad inoo dhaxaysa inta yar bacaadka inoo dhaxaysa waxaan jeclaan lahaa inay noqoto dhul cagaaran oo indhuhu ku doogsadaan laydhii badda kugu soo dhacaysa oo yaani maskaxda qaboojinaysa aragtida isha ee badda ku dhacaysa in cagaar ka sokeeyo indhuhu ku doogsadaan oo hawadu sifaynaysa dhirta neefta ka soo baxaysa hawada sifaynaysa marka caafimaad baa laga helayaa waxaad ka ilaalisaan bacda waxaad ka ilaalisaan caagada waxaad ka ilaalisaan shaqaf la tuuray inta ka ilaaliya xeebtaas iyo magaalada iyo hoteelka inta u dhaxaysa ilaa ka qabatay beachkaas ama xeebtaas inoo muuqatay quruxda badan iyadoo nadiifta ah oo aan pollution lahayn ilaahay ha inooga ilaaliyo xoogaynu kaga ilaashano pollutionka malihin laakiin inta inoo muuqato inaga oo ah inaynu cagaarino inaynu bacda iyo shaqafka iyo caagada ka ilaalino qofkii ku arko inaad ka soo qaado meel lagu ridana insha Allah waxaan rajaynayaa hoteelka iyo degmadu inay iska kaashadaan qofkii xagga xeebta aadaba caagad helaaba inuu soo qaado meel ku rida ay jirto kadibna kambaniyada ama biyaha sifeeya ama biyaha iibiya waa inay qaataan caagada say doona meesha doona ha geeyeen jawaano iyo kartoon ugu gura u geeya ama hadday recycling ku sameynayaan hadday meel ka fogeynayaan adduunka cidii wax soo saarta marka wuxuu gaboobay talax gab noqdo cidii soo saartay baa iska leh inay recycling ku sameeyso oo ama baabi'iso ama wax la isticmaali karo ka sameeyso ka wasaarad ahaan sida agaasimuhu sheegay diyaar baanu ahay inaanu kala qayb qaadano xeebtaas inay qurux badnaato green ahaato intii awoodayada wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaankana insha Allah waan la kaashan doonaa waynu isugu iman doonaa inaynu insha Allah bal waxaynu ka qaban nooca aynu cagaarinayno laakiin nadaafadeeda meel indhuhu soo jiitaan ha noqoto aan bir lagu turturoonayn caagadna lagu turturoonayn shaqafna lagu turturoonayn intaas ayaan ku gabagabeynayaa salaadii maqrib inoo jooga aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furidda hoteelka Ail Beach Hotel anigoo ah kamid ah ganacsatada Puntland waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka iska leh hoteelka iyo bulshada reer Ail oo igu soo dhaweeyeen inaan ka soo qayb galo hoteelka quruxda badan iyo soo dhaweyntooda waxaan aad ugu mahad celinayaa Axmed iyo Cabdirasaaq dadka iska leh hoteelka waxaan aad ugu faraxsanahay inay noo furaan hotel aad loogu baahan yahay u baahan tahay magaaladu inay maaragtay dadka dalxiisayaashu yimaadaan iyo dadka jooga oo very comfortable
serviceka aad baan ugu farxay marka aad baan iigu mahadcelinayaa waxaan leeyahay soo dhawaada kana soo qayb gala ganacsatada dhalinyarada oo furatay maaragtay hotelkan aad baa u mahadsanyihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga waxaan ka imaaday Boston, Massachusetts baan ka imaaday waxaan joogaa Ale Beach Hotel baan joogaa. I am very happy and lucky to be here at the same time it's opening. I encourage you all to come and visit. It's beautiful. I just came back from hiking, mashallah. Waa loo baahan yahay dadka meesha noo fureen walaalayaal mahadsanid meesha noo sii horena sii gaariya meesha noo sii badiya. waxaan ku faraxsanahay maanta in laga furo hotelka quruxda badan ee aad ku weyn Ale Beach Hotel ay furteen ganacsato aad iyo aad u qiimo badan ugu horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq iyo agaasime Maxamed iyo aqoon-yahan ganacsade Axmed Nuur waxaan leenahay mar koowaad mar labaad ku soo dhawaada degmada Ale qaybta wuxuu ahaa beday waa u jeedaa hotelku meel qurux badan ku yaala wuxuu ku yaala badii beach ku yaala waa hotel aad iyo aad loo casriyay hotel aad iyo aad qurux badan waa hotel looga baahnaa degmada in laga furo ay dhammaan dalxiisayaasha iyo dhammaan madaxda dawladda ay ku soo hiranayso ay imaanayso oo looga baahnaa in badanba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. hotel Ale Beach Hotel waxaan leenahay dadka dalxiisayaasha ah ku soo dhawaada Ale Beach Hotel. waa in salaam inta muuqaalkayga daawanaysa waxaan aad ugu soo dhaweynayaa dalxiisayaasha imaanaya degmada Ale waxaa ay laga hirgeliyay hotel casri ah oo la yiraahdo Ale Beach wuxuuna ku yaalaa xeebta geeskeeda waxaa laga helaa wax walba oo agab ah oo markaas aad u baahan tahay sidii cuntooyinka organic ah oo badda kalluunkii argoostadii waxyaabo badan waxaa laga helayaa dalxiisayaasha wixii ku dalxiis lahaayeen oo badda waxaa ku soo dhaweynaya shaqaale aad loo carbiyay oo u habaysan shaqada hotelka iyo soo dhaweyntiisa hotelku badda ayuu u dhow yahay markaad soo daashid aad shaqada ka timaadid waxaad ku helaysaa relax adigoo helaya mukayfkaaga marwaxadaada iyo meel ku qancisa oo jiif wanaagsan ku soo dhawaada hotel Ale Beach ku soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba inaad ku soo dhawaataan hotelkan casriga ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee degmada gobolka Nugaal ay ka hirgelisay degmada Ale waa hotel casri ah waa hotel ina qancin doona anagana na qanciyay markaad imaataana idinkana ina qancin doona qurux iyo bilicsama ah oo isha iyo qalbigu ku qaboobay ogaa dad oo dheho waa goob indhaha horan qalbigana soo jiisan dhimaanin ku reebisa halkan idin muuqata maha qaarada qalaad iyo geeshisheeye ee wadagma xebeedka Ale